بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كحرنا بيرا تي في سي أدوبة كتب برشاد علمي بيرا ما أنت راح كاد إنها وبحيدا يقاب كله قرحيو ترجينوين كجريها مركا سي أد مركا أدو قرح ترجينوين كجريها حدو بهانتا إن هشو وبحيدا نوعانا كلا دوان كلا كلر كافيري أنتنا وحواي وكلر أنتنا وكلر مركا إن لبدان كلر waxay waa la isku dhex daraya hadda waxay u abuuran yihiin qaab oo ashwaaciya laakiin waxa lagu sameeyaa waa la isku daraa waxa lagu sameeyaa in la isdhex geliyo mid kan gaduudka oo basaliga abuuray mid kan kale cadka ku xujinaya ka basaliga abuurka deedna waxay noqonayaan aad u qurux badan waxa kale oo jira asna ubax mooskan iyo ubaxyadan kalaradaas caskaale oo macnaha waa shig jaalaha leh iyo kan oo cagaarka oo leeyahay ubax mooska asoo wuxuu fiican yahay waxa waaye waa isaga badanayo oo meel dhul badan qabsanayo marka waxaad u baahan tahay inaad hesho waxyaabahan hadda waxa waaye meeshan waxa loogu talagalay in lagu ilaaliyo ubaxyadan si isu u luminin ubaxyada caadiga oo wadankanaga ay baadiyaha caadiga ku yaalo marka inta waa lagu xanaaneeyo markii shayga la xanaaneeyo oo shayga la soo qaado ubaxyadan adduunka oo dadku ay meelaha ku beertaan ma ahan ubaxyo oo qawaarqul caada ah meelaha kale laga keenay waa ubaxyadii dhulka baadiyaha ayaa la xanaaneeyay oo la ilaaliyay marka ubaxyadan hadda meelahan dad uga baxdo magaalada oo banaanka aad waad arkaysaa caadad u arkaysaa iyagoo ku yaala kay sheeg marka hadda ninkan meeshan buu wuxuu ku xanaaneeyay ubaxyadaas oo ubaxyadii duurkoon ku soo aruuriyay uu xanaaneeyay oo kaliya marka dad kale waxa waaye markaad geeda ay ku agabuuran yihiin ama geeda ay ku agabuuran yihiin waa ka sii qurux badan tahay waana ka qabow badan tahay waana ka kay sheegay in qabad fiican tahay marka waxaad fahmi kartaa wax walba oo la xanaaneeyo ama la ilaaliyo inay yihiin wax aad u qurux badan marka waxa weeye waxaan leenahay guryaha la qurxiyo la wanaajiyo hana la socdo wax walba oo ay sheegeen wanaaji kara kii quruxda ama soo saari kara bilicda gurigaas darjiinadiisa inta badan Soomaalida waan dhaqanaa waxa waaye darjiinooyinka geedo ma lagu beero haddaan geedo lagu beerin maxaa dhacay waxa weeye gurigaas qabow ma yeelanayo inta qabad oo wax soo jiidasho oo qofka uu meesha intuu fariisto relax ku dareemo ma arkayo waxa way wax badan baa ka qaldan marka si waxyaabahaas looga baxo marka waxaan leenahay ha la sameeyo wax walba oo geedo lagu abuur karo ama lagu badi karo oo waxyada guryaha lagu qurxin karo in lagu siyaadi karo in relaxation qofku dareemo oo uu sameeyo wax walba oo sheeg uu ku dareemi karo inuu guriga meesha si fadhiyo fadhigiisa ku raaxaysto marka waxa weeye waxaan leenahay in hala ilbaxo horaha loo socdo wax qurxoon oo indhaha ku raaxaystaan markasta gurigaaga markaad ka helaysid waxa waaye good waxa waaye noloshaada ku raaxaysanaysaa laakiin haddii dirbi ku soo dayo waxa waaye wax qurux badan maahan marka waxaan leenahay hala wanaagsan la hagaajiyo bilicda guryaha si oo u noqdo mid loo soo xiiso oo lagu dareemo nasasho iyo wanaag marka waxa weeye ubaxyadan hadda waxaa ku yaala meesha tan ugu yaraan 6 nooc oo ubaxa meesha ku yaalo marka waxa weyn bay qabanayaan intaasaan ku soo dhowaadayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.